Neymar Jr xiddiga reer Brazil ayaa dhaawac xanuun badan uu ka soo gaaray kulankii xalay xilli isagoo ilmeynaya garoonka laga qaaday. Neymar ayaa daqiiqado yar uun ka soo muuqday kadib markii uu garoonka laga saaray ciyaartii kooxdiisa Al Hilal ay ciyaaraysay tartanka Asia Champions League iyagoo la ciyaarayay dhigooda kooxda Istiqlaal. Waa kulankiisii 20 markii uu dib ugu soo laabtay dhaawac xiddiga uu muddo uga maqnaa. Dhaawacaasi oo ka soo gaaray bilowgii sanadkan. xiddiga reer Brazil oo dhowaan ka soo kabsaday dhaawacii hore ayaa bedel ku soo galay daqiiqadii 57 ee kulankii xalay, laakiin wax yar kadib waa la bedelay taasi oo walaac ku abuurtay kooxdiisa. Dhacdadan ayaa dhacday kadib markii Neymar uu lugtiisa midig dhib xooggan uu ka soo gaaray isaga oo kontarolayay baas ka yimid saaxiibkiisa Marcos Leandro. Isla markaana Neymar ayaa lugta qabsaday wuxuuna codsaday in la bedelo taasi oo culays badan ku ah kooxdiisa Al Hilal. Kadib markii uu soo dhammaaday kulankii kooxdiisa Al Hilal ay la ciyaartay dhigooda kooxda Istiqlaal, xaaladda xiddiga Neymar ayaa lagu sheegay inaysan ahayn dhaawac halis oo la mid ah kii uu dhowaan ka soo kabsaday, iyadoo xaaladda xiddiga lagu qiyaasay mid ku soo kaban kara toddobaadyada soo aadan. Xiddiga Neymar ayaa sanadihii ugu dambeeyay u nugulaa dhaawacyada halista ah ee soo gaaray xiddiga, iyada oo waayihiisa xiddigan ay mugdi xooggan gelinayaan dhaawacyada isdabajooga ee soo gaaraya xiddiga reer Brazil. Neymar, xiddig si weyn loo jecel yahay farsamadiisa kubadeed iyo bandhigyadiisa garoonka, ayay muddo dheer weyday kooxdiisa Al Hilal adeega xiddigan. xiddiga reer Brazil ee Neymar oo ka mid ah xiddigaha lacagta ugu badan ka qaata horyaalka Sacuudiga gaar ahaan kooxda Al Hilal ayaana ka soo muuqan kulamo badan tan iyo markii uu kooxdan reer Sacuudi ee Al Hilal uga soo wareegay dhigooda kooxda ka dhisan Faransiiska ee Paris Saint-Germain oo waaye qurux badan la soo qaatay. xiddigan lagu magacaabo Neymar iyo inta badan dadka ee ku dhaliilaan in uu yahay xiddig si weyn markaasi kubadda isugu dhajiya sidoo kalena jila kubadaha qaar, taasi oo keenta in ciyaartoyda qaar ay si foolxun xiddigan ula dhaqmaan, taasina ay soo dedejisa dhaawacyada halista ah ee soo gaaraya xiddigan reer Brazil.